Welcome to Delcy. If you're new to the channel, please make sure to smash the subscribe button and to press the bell icon in order to get every valuable video that we post. If you have done all, let us get started. The most valuable video of today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkaan naga daawanayso waa janaalkeena Deeqsi. Waxaa idin la hadlaa walaalkiina Deeq. Marka hore soo dhawaada videogeena imaanta wuxuu ku saabsan yahay AdSense approval for .blogspot.com. AdSense inuu soo aqbalay .blogspot.com baa waxaan rabaa inaan idin tuso. Marka AdSense marar badan wuxuu soo aqbalay .com. Marka .com baynu anaga apply gareyn jirnay oo .com ka baa la soo aqbali jiray, laakiin hadda waxa waaye tijaabo waxaan ku sameeyay .blogspot.com in la soo aqbalay. Marka .blogspot.com kii AdSense wuu soo aqbalay anyway. Marka dhalinyarada ku dhiban AdSense-ga .blogspot.com na haastaan waxaan dhihi lahaa domain haddii macnaha hadda domainka iyo hosting-ka aadan isku xujeynaynin .blogspot.com waxa ku wanaagsan oo ugu fiican maanta oo lacagta adoona lacag ay kaaga bixin oo domain iyo hosting oo sanad walba la bedbedelayo aadan sameysan aad lacag kaga sameyn kartid. waa website-ka aan isla aragna marka oo la soo aqbalay oo .blogspot-ka ah. website-ka waa kan midkan weey website-ka anyway saa u jeed website-kan waxa waaye qof oo saan oo kale aan kula wadaagaa ma jiro, dadka wax bay ka qarqarsanayaan, laakiin website-ka waa kana saa u jeedid cayaara.blogspot.com ka waaye. marka website-kan wax lagu soo aqbalay iyo shuruudaha lagu soo aqbalay wax saa u weyn ma aha. AdSense horta wuxuu u baahan yahay qof oo experienced ah, waxaan cabaar ku soo jiray. marka wixii hadda cabaar ku soo jirtay website-kan website markii ugu horeysay loo diro waaye. wax yar baan dhag aan si kadib kaliya waxaan experience u baahan tahay. marka website markii ugu horeysay loo diray isla markaa la iska soo aqbalay waxa traffic fara badan muusan helin. wixiisa maxaa la dhahay jiray artikalada ku jiraan wax jira ma aha oo artikaladiisa daa aragtid waxa waaye 9 post leh waaye. 9 post kun words meesha kuma qornaba, ninka soo qoraan waaye. marka kun words meesha kuma qorno waxa ku cadeynaysaa marka AdSense-ga dadka oo ku salacsan oo dhahaya kun words ay iskaga baahan yahay 20 post ugu yaraan la iskaga baahan yahay, waxaas waxba kama jiraan. marka inay waxba ka jirin bay ku cadeynaysaa arrinkaas. anyway marka waxaan diyaarinay website-yo, waxaan website-yadan u diyaarinay 3 website baan diyaarinay hadda oo .blogspot.com ah. dhalinyaro fara badan way ila soo xiriirtay, laakiin ilaa hadda dhalinyarada ila soo xiriirtay waxay leeyihiin waxaan haasanaa intaas lacagtii lacag ka yar bay sheegayaan. marka 3 website ka aan diyaarinay waxa waaye waxaa loo diyaariyay AdSense loo diyaariyay, laakiin hadda AdSense loo dir rabaa. AdSense website-yada markii loo diro intii aan loo dirin haddii aad soo codsatid website-kii waxaa laga siin doonaa 120 baa lagu siin doonaa. haddii website-kii aad soo codsatid markii AdSense uu soo aqbalo website-kii waxaa laga siin doonaa 200. marka anyway akhyaaray website-kaas marka kaliya saddexdaas website wax kale maanan ugu talagalin. waxaa ugu talagalnay kaliya dhalinyarada oo isdhees macnaha waxaan ka niyad jabtay oo congratulations-ka in la hada aan arkaynin oo marar badan aan loo soo dirin. you need to fix dad fara badan loo soo dir way jiraan oo waxa waaye. marka you need to fix kan ani hal sano waxaan ku jiraa ganacsigan 2 sano camal aan ku jiray. marka sanadkii ugu horeeyay you need to fix madaxa ku xanuunaya. marka waxa dhaysaa waxaan yahow waa hadaan dulqaad lahayn wixii dhaqsaa ka bixisa. ilaa hadda waxaan ogahay dhalinyaro fara badan oo aan isla soo bilaabnay markaas domain iyo hosting markay gateen hadda website-kii domain-ka uu ka dhacaayo ilaa hadda wixii ay soo dhigayeen way iska dhaafeen. waxay dhaheen kan hawada leh markan iga dhaaf markiis. AdSense wuu isoo diiday waxaan rabaa mal waa iska dhaafay. marka dhalinyaro fara badan oo saas sameeyeen waa ark. marka waxa waaye taas waxay ku tusinaysaa marka mar hadaad aadan lahayn patient waxay ku tusinaysaa in guul daradaada ay badanayso. haddii aad dulqaadanaysid dulqaadkaada uu badan yahay dhalinyarada aan dulqaadkooda uusan badnayn AdSense intaan ka badan aan dulqaadan karin baan 3 website u sameynay. marka 3 website haddii 3 website marka 3 qof ugu horeyso oo heshiiska si fiican ula heshiisay website-kan lacagta inta la bixi doonto website-kaas insha Allah la wareegi doonto 3 website. haddii marka waxa la dhahay jiray dhalinyarada kalena
lama fara badan ilaa hadda soo xiriir soo jiraan laakiin up to now dhalinyarada waliba waxay ku tusinaysaa in oo markii la dhahaa 120 waay waxay ku dhahaan dadka kale 35 ay ku sameeyaan maxaa ka wadaa saas maxaa ka wadaa ustaad way ku dhahaan muhiimadda walaalayaal waxaa waaye dadka kale waxay ku siinayaan waxaa website oo aanan la soo aqbalin oo AdSense uusan soo aqbalin bay ku siinayaan kadib adiga AdSense la wareegaysa markaa nii jabtid asida iskaga dhaafaysaa website-ka hawada ugu baxaysaa laakiin kan mid la soo aqbalay oo pin verification bisa u sameysanaysaa wixii kale oo xog oo dhameystiran iyo xayaysiinta in laga soo muujiyo website-ka shaqadeena waa anaga sameynayna bantiin marka arrinkaas sameynayna anyway hadii marka aad xiisinaysid nala soo xiriir Telegram channel-ka nagala soo xiriir Telegram channel-ka hoos ka helaysaa description-ka saasoo kale WhatsApp number-keena toos waxa u helaysaa adigoo booqanayso maxaa la dhahay jiray website-kan oo ciyaaraha hada la soo aqbalay ujeedo website-kan adigoo booqanaysa ka helaysaa WhatsApp number-keena halkaas nagala soo xiriir hadii aad doonaysid arrinkaas videoga xiga intaan ka kulmi doono khayr waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo